Nahan kunimiyo di bahatamutho Do mahalay gasaray dinahyagay Tara hartan wahyela dihi daqdaqe Alan kadid baysaw masuhodirwile بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم حقك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام وهي ما أنت waxay taariikhdu dul oganaysaa 14 bishii Agoosto 2019 halka saacaduna waxay soo xangagaabataba barroosinka ay dhigatay waa haday kaaga roon tahay 4 galabnimo oo 25 daqiiqo dhiman hagaag waayahay waxaan joognaa magaalada Kismaayo waa dawladda deegaanka Jubbaland waa haday kaaga roon tahay meesha la yiraahdo maamuus dawladda dhageystayaal maanta waxaan idin wadaa barnaamij cajiiba oo aydan hore u daawan oo muxuu yahay waxaan idin wadaa waa philosopher ruug cadaa waa nin 100 sano jiray taariikhda Soomaaliya oo dhan inoo haya wuxuu inoo haya bal hadda eeg wali baan idin ku daray yaa ninka la yiraahdo waa Cabdi Barkhadle waa kan dhanka midigta iga fadhiya Cabdi Barkhadle wuxuu ku naanaysiyahay waxaan naanaystiisa la yiraahdaa Cabdi Madar 1990 kii budhashay iyo 19 aan idhaaday 1919 waa 100 sano ka hor ما هو أشوف وياه هنا قيح بالي برنامجكين هنا قرين هنا قيح وحير من ذيك تتابعنا تاريخ عبد البرخلي هجاي أمة بدن عالم كلهم بالي نقد داوانية عبد البرخلي إلهها با ما هذا سكله مرة هذا أقلاتي إن هذا ورئيس إسيسو وقت جاك غالية عبد البرخلي سجى أصعد النيروبي أيام عندك سودجي adeer iga tagi meesay ilaa aad waraysi isiiso Cabdi Barkhadle way iga ogolaaday daawadayaal dhageystayaal Cabdi Barkhadle bal dad badan baa ina daawanaya wali waxaan idin ku darayaa daawadayaal dhageystayaal ilaahay amarkii Cabdi Barkhadle inta meelood ee Jubbaland shidaal ku jiro wuu ogyahay isaga ayaa waagi laga shaqeynayay ceelasha qaar qarxiyay sarfay ku sameeyay inta meelood ee shidaal ku jiro Cabdi Barkhadle waa nin dhala maanta oo la hagayo wiilkiisii oo kana bal haday la eega adeer magaca Maxamed Cabdi Barkhadle way Maxamed baa hagayay Cabdi Barkhadle waa Cabdi Madar oo 100 sano jiro philosopher labadii calan kana si kana saar labada calan baa waxbu ka saaray kii Muqdisho la saarayay iyo calanka Hargeysa la saarayay labadaba Cabdi Madar oo philosopher waxaan u malaynayaa waa philosopherada farakutiriska ee maanta Soomaaliya nool Cabdi Madar 100 sano jira Cabdi Madar alla ilaahay hal oo manigeer hortibay dhacdaa hadalkii waan ka qadiyay anu baa maanta dhandaldalayay dad badan baa Cabdi Madar oo ina daawanaya ilaahay amarkii indhahaagu nuur bay lahaan jireen ilaahay baa la noqday nuurkoodii maanta wiilkaagii baa ku hagaya Cabdi Madarow xageed ku dhalatay waxaan ku dhashay magaalada la yiraahdo Qabri Dahare ayaan ku dhashay dooxada la yiraahdo Galadiid ayaan ku dhashay waayahay Cabdi Madar waa Cabdi Barkhadle philosopher Cabdi Madar wuxuu inoo sheegay Galadiid waa Qabri Dahare inuu ku dhashay sidoo aniga ii sheegay 100 sano ka hor waa 1919 ilaahay baa mahad iskale Cabdi Madarow ilaahay baa mahad leh waxaan anigu in badan maqlayay oo aan bulshada dhexdeeda ka maqlayay Cabdi Madar
labada calan ba wax buu ka saaray waa marka meelaha bulshada isugu timaada lagu sheegay filosofer cabdimadar labada calan ba wax buu ka saaray kii Hargeysa la saarayay iyo kii Muqdisho la saarayay bal arinta maadaama ilaahay amarkii maanta umrigu isku keensiman inaan kugu waraysta maamuus oxmaaya ku taal bal arinta dib iigu noqo waxaan kuu sheegayaa horta aad baan ugu baahnaa wax iga duuba dalka iyo dadka iyo ummadda hadalladeeda aad baan u baahnaa waan gartay markii horena dee nin dadka ku dhex jiro odayaasha iyo howlaha adduunka oo dhan wax ka qabtaan ahaa waan gartay intii aan indhabeelayna cid wax igu fashay ilaahay mooye ma aanan arag iyo carruurtayda mooye haddaba labada calan waxaa weeye annagoo arday ayaa Hargeysa habeenkii qaadanaysay casarnimadii baanu calamada tolannay haye 18 calan baanu samaynay haye laama dheer dhulku dhir buu lahaa ayaanu soo goosannay haye kolkii dadkii kala degay cagtii ayaanu kacnay waa isqaybinay haye qola stationkii Blaiska igu kacday oo ka taagtay haye qola waxay ka taagtay lama galaaygi haye qola waxay ka taagtay Fatanya Shalanqa haye qola waxay ka taagtay daraawiishti haye adigu 18 calanba magaalada Qabdahran ku wareejinay haye albaabada dariiqada laga soo galaan sugnay waa gartay inta markay dhacday ayaa horta anagu kala xiroonay haye waan daawanay anigu marka calankii stationka markuu dajin hayay calankii stationka Qabridahare ee Blaiska ee Jibriga agtiisa markuu dajinaya waan daawanay daaqad baan ka daawanay haye kolkii waagu bariyay arkeen ayaa waxa ku waasheen inde babadira inde ku waasheen haye cabashadii way soo yaacday haye niman askar la soo kaxeeyay haye calankii baa la hoos joojiyay haye waa la arkay inuu Soomaaliya yahay haye tartiib baa loo soo dajiyay waan dhawrayna haye kolkii la soo dajiyay yaa mid intuu dhulka ku dhuftay ayuu ku joogsaday ninkii dalbahayay baa hooy dharbaaxo wa haye askarigii baa dharbaaxaliina ku dhuftay haye wa calankii baa la qaaday waa la laalaabay si sharaf leh yaa loo laablaabay oo xabashidii baa laablaabay Blaiskii weeye dhageysta haye waa calankii Soomaaliyeed oo ku 960 kow haye sidaas calankii ku galay meesha iyagu ay galeen anagu waan ka baxsan subaxdii markuu waagu bariyay ayaan anigu soo booday baabuur soo baxay nin Blaisa oo saaxiib ahay oo Soomaali ahaba feerfeer soo baxay haye kii baan ku soo dhacay anigu haye feerfeer baan imid haye duhurka dabadiisii waxaan iska joogaba kolkii maqribku gaabtay yani in cid kale ka wareegay Soomaalidii iyo yaa meesha la kolka hadda waxay ahayd daaqiligi baa la haystay oo dhulka Soomaalida buuxday oo Blaiska Soomaalida meel u bajoogay Cabdimadar oo geesi ma gaagaxee Allah ilaahan ka dhaxgalay waxaan dad badan ka maqlay filosofer Cabdimadar inta meelood ee shidaal ku jiro Jubbaland uu ogyahay horta dad badan baa waxay aaminsan yihiin ba Soomaaliya inaan shidaalba ku jirin dadka qaar baa waxay aaminsan yihiin shidaalka ugu badan dunida inuu Soomaaliya ku jiro maadaama haddaba maanta daawadayaal dhageystayaal aan la fadhiyo filosofer 100 sano jiray waa fursad weyn oo hesheen shidaalka Soomaaliya ragii muddo dheer ka soo shaqeynayay ee ceelasha qaarkood survey ku sameeyay ee ceelasha qaarkood alla ilaahay qarxiyay ayuu filosofer Cabdimadar qaar wuu qoday haddaba bal inagu fursadda ka faa'iideysanayna ilaahay baa inagu simay Cabdimadarow dadka badan ee ina dhageysanaya fikirka shidaalka ee Soomaaliya siiba Jubbaland bal inta meelood ee shidaal ku jiro bal hadda noo tuurtuur oo bal noo iftiimi hadda iyadana waa ku siin haye laakiin xaqii calankii baa in yar ka dhinaaday ku darso waan soo baxay haye feerfeer baan soo galay waan gartay subaxdii baan ka soo baxay haye habalweyna la keenay xamar baan soo guura galay haye hada ciyaal baan ay markaa ugu nin arday oo yar baara haye baan soo galay markii aan soo galay marka haddaba waxa la geeyay stationkii baabuurtii aan la socday yaa stationka la geeyo baaritaan iyo wax lagu sameeyay aniga magaalada ma aqaan dalla ma aqaan waan gartay dadkana meesha joogana ma garan hayo
si fiican baan loo garoon soo dhow meesha baan iska seexanay waagu markuu bariyay baa niman Soomaaliyeed la hadlay walkaasna dadka Soomaalida xagee laga helaa waxa laga helaa meesha ceel gaabta ajib la yiraahdo ayaa dadka laga helaa waa in yar oo ceel gaabta oo magaalada ma jirin xamar tabarkayso wax yar bay ahayd gabigeedu inta way magaalada quman waxoogaa dawladdu dhisatay oo gooni amooyee wax yar bay magaaladu meesha haddaad ruuxa doonayso ceel gaabta un baad ugu iman ama kula ballami haddaba markaa sidaasaan calankii dambana habeenkii xamar kaga saaray xamar markii waa kowdii July kowdii luuliyaan kaga saaray waan gartay afar beri bay kala labada calan kala dambeeyeen annagu dawaan socday waxaan ku talagalay inaan kana saaro cid wax ugu falaysa ma jirto iyo cid yaqaana midna ma jirto xamarna waxa ay afar guriyo isla dhawraysa waayahay haddaba bal waxaad yeeshaa ka arrimihii shidaalka Soomaaliya bal noo taataabo taana waan ku taaban haye shirkado badan baan u shaqeeyay adigu oo Mareykan haye shirkadu waxa la CGG company haye wa Faransiis iyo Ingiriis iyo Talyaani bay ahayd waan gartay shirkadna waxa la oran jiray Roach company waan gartay shirkadna waxa la oran jiray Ray company waan gartay intaas oo dhan Arab ku dhaxtiistay haye shirkadu waxay ahayd marka Golf company haye shirkad way farbarnaayeen shirkaduhu haye tan aan kuleeyahay waxa la yiraahaa Ray company saddex madaxna Soomaaliya laba madaxna Soomaaliya ku jirtay haye laba madaxna waxay ku jirtay Ethiopia waan gartay wadanka ogaadeen silaabiyo dhulkaas ka soo shaqeynayeen waan gartay haddaba marka wakii Hayle Salaasa dhacay meesha laga qaaday mgisti ka qaaday shirkadahaas xagga jiray markiiba waa la soo wareejiyay waan gartay kuwii Soomaaliya oo mid ay halkan ka shaqeynayso ay Jubbaland ka shaqeynayso midna ay ka shaqeynayso dhulka iyo calowla iyo xagga iyo baarka dhulka ay jirto ay ka shaqeynayso waa shirkadii ugu dambeysay shirkadaha quman ayaa way jireen oo Charles bay ahaayeen kuwaas haye haddaba marka waan ka soo kacnay waxaa yimid marka Golf company oo riigagii wata baasinka qodahay haye marka imisa sana laga joogaa baad u malay wallahi taariikhda hadda sidaa uma garanayo muddaas kulli waa intii dawladii hore haye dawladii hore weeye waa xilligii Magista Hayle Maryan iyo Maxamed Siyaad Barre miya Maxamed Siyaad Barre ma gaarin markaa ka hor weeye waa ka hor ka soco waxa weeye oo ku garanaysa Maxamed Siyaad Barre dibitaati ma iman jirin haye wixii ka horeeyay way dibitaatiyaal waa run wixii ka horeeyay soo ma maqlaysid haddaba marka qarahi baan wax ka qoday oo yara qalqalaba wax ka qoday oo Ooda Xaliimaan wax ka qoday oo Aadan Baylaan wax ka qoday oo Qoryooley baan wax ka hadda miyaan ku daba waa ceelasha shidaalka miyaa waxaas waa ceelasha shidaalka laga qoday xagee laga qoday qarahi waa Jubbaland ma qarahi baa leeyahay qarahi meel la yiraahdo qarahi oo Jubbaland oo meelka dhulka ugu baasin badan ceelka lixaad qarahi baa leeyahay ceelka kale maxaa leeyahay afbadow 45 kiiloomitir way u jirtaa haye mid waxa la yiraahdaa Ooda Xaliimaan ceelka kale la yiraahdo Dasheeg waa ku yaala ayuu ku yaala isna waa ceel weyn oo shidaala haye ta kale wuxuu ku yaala Aadan Baylaan oo jamaama qarkiisa waa ceel shidaala waa kale wuxuu ku yaala shirkadaha ka soo dhaansanay haye ta kale wuxuu ku yaala bahasha la yiraahdo taabda meel ku dhow waa ceel shidaala oo u dhaxaysa qooqaan iyo waxa u dhaxaysa Ditaaburo iyo qooqaan iyo Badhaadh haye intaasoo ceel markii aanu qarxinaynay eenu Charles ka ahayn haddii xoolo naloo waayo baciidka iyo waxaana loo dili jiray maalinta feestada ceelka markii meesha la arko ama baciid ama gari ama neef lo aan loo qali jiray waan gartay ceesha kale sida kolkaan surfeyga ahayn saasay ahaayeen ma ogta markii qodaalka inta waa noqodnay markii ka intee dambe surfeyda ahaydna ceesha dhagax baanu gelinaynay karoos meel la yiraahdo oo jidku saa isu gooyo
ayaa labada daarood dhinacood mid walba dhagax intaa la eg oo sabada oo shamiinta oo yaa lagu qorahayay magaca iyo lambarka meesha haye intaa in leeg baan ka soo jeedin haynay haye inta kale wuu aasan yahay haye waa hadda aasha muhiimka ogow waaye waxa la meeshii muhiimka sidaas oo kale dhagax ugu jira waanga meelaha kale qaar baa aan nooc lahayn haye markaan sidaa ceesha uga sheekaynhayo oobiga wax qarxinhaya anigu mashaacid baanahay oobigaa wax qarxinaya waraaqihiisa oo dhan baan maydhahayaa anigu waan gartay dhulkan aad arkayso ee waddanka inaga hooseeya waa sidan oo kale waa dariiq maarmaar leeyaris buu leeyahay haa dhagax baad ku arki oo meel dhoobo oo jilicsan baad arki oo waxaad arkaysaa carro kale oo midabyo kale aad arkaysaa dhulka qolba waa magac waan gartay dhagaxa markaad joogto markii qodaalka loo kaco dhagaxa markii meesha dhagaxa beebku qodahayo baalshooda ka istilay oo cusbaho intaa la eg oo hadday ku taabato gebigaaga ku kala jari ayaa dhagaxa aan ku shubahayaa 12 nin baa ii fadhida meeshan oo wixii muud ahaa ama sabad ahaa ama xasiiska badda maaragtay xasiiskaas ayaa jawaane laga soo buuxinaya ciid muud la yidhaaha jawaane laga soo bixinaya mayaan kuu tirin karaa de wax ciiddaa ka badan ii geesi ma gaagaxee cabdimadarow ii jooji daawadayaal dhegaystayaal sidaas filosoofar cabdimadar maqashaan bal hadda ceelasha waad maqlayseen cabdimadarow waxaan ku weydiiyey shidaalkaas waa la hubiyo waa la xaqiijiyey bay ahayd Soomaaliya diikaadi maxaa haddaba qariyey oo ummadda Soomaaliyeed loogu soo saari waayey oo ceelasha shidaalka ina shib laga yidaa oo raadkooda hadalkooda hugunkooda shaqadooda in la waayey maxaa sabab u ahaa waxa sabab u ahaa horta ceelka horta ugu qolka inta la qoday ceelka baasiinka laga wareeray ay dhawaaqday aroortii baa laga sii daayay habeenkan waxaan ahaa buudijeerka مساعد براني بقول شركة إسبدليني شركة ماشى هايستا يعني إسبدليني نورين شركة وأنا كماشى هايستا وأنك هايستا باسين كشيء هي واحد كتيرة هي دول كل قضاء هي واحد لغوص بحيو وانقرت أنا شركة إسبدللا هي أنا وحي بري وحاجرة كله أنت اللي أقول دقلي هي ساعة ملك ساعة وقدر له شله هي هل كاسة كوا حيس ما يسا هي waxay sheegaysaa kolka hal beeb baa socda beebka waaweyn baa socda ma ogtahay oo dhulka qodahay magaxa wuxuu ku leeyahay dhagaxyo kurkureedo sida baabuurka aal baraha ku jira soo gafuura male sidaas oo kale uu gafuuro u leeyahay kaasaa qodahaya haye haddaba marka intaa uu beebku ku dhammaanayo godka biyaha kolba soo baxaya 15 daqiiqo mar baan kala xal soo darahaya bahasaasaa lagu shubahaya saacadaasaa kuu sheegaysa nooca aad ku shubayso ceelka yaa kuu sheegi hadday sawda coast ka tahay cusbadii tahay oo dhagax meesha tahay hadday arrimadow dumaysa tahay haddii ay tahay xashiish u baahan tahay hadday sabad u baahan tahay wax walba beebkaasaa ku walaaqahaya oo dhulka xidhahaya waxaad iigu noqotaa ceelashan maxaa shanqadhooda loo waayay waan kuu socdaa haye عشان كو عيالك وهذا مركن دبنا قودي سولا صاري المال إذا عاد الحفاف يا وعيالك قرر ها يعني كيف يا وحكي على أفرضوا شني 40 كيلومتر بوشرة عيالك قرر الشدال يقوين أفمذو شني 40 كيلومتر بوشرة والله مذ شرا أو بدك حتى بحوضة كشرة كوا بدك أكتوضة كشرة لكن هذا عيالك باسين كسقول كلو واقعي بانكو شيء هيه أنا كانوا قال كوارث بدلك ويقول كافيه بان سو عبي انا اقول كان سو عبي يقول كافيه وهبين با شقينا لا مالي با شقينا يا وحوري كافيه بان سو عبي سي وكوكا شقدي انيغا ku jira waan gubtay waxaan qabaa dhaxan baa socota bahal abuurka weyn iyo sarwaal iyo dhar waaweyn baa qaba iyo kaba waaweyn iyo koofi waxa saafta waan gubtay kolkaan ololay yaan dharkii iska wada bixiyay waxaan la haday nigiskii iyo garankii soo kale sax qiiq buu soo tuuraya aniga orod intaan kala soo daro yaan eegaya soo ma maqlays waan gartay waxaas biyaha halkaas socda ku sheegay wax walba wuxuu u yahay waan gartay
saacadaasaa kuu sheegaysa gaalkii xaggaasu ka soo cararay qiiqii inbuu arkay iyo waxaa socdaya aniga orodkaydii daaqaduu naga eegahayaa af labadiibu soo dhawaaqay marka Moses gaalka isteerikaya Moses baa leeyahay waa Maraykan Moses goddamn salama binti close buu leeyahay isagoo saa u ordahaya kolkiiba intuu soo gaaday isteerika soo galay turubadii ku dhuftay riigga ummaddu saa u soo kacdo baalkana wuxuu yidhi xid waa baabuur uun istaaran oo shaqaynhaya laakiin aan dhaqaaqayn waan istaaran yahay waxaa isu yimi wixii shaqaale oo dhan baa soo duubay wax alla wixii makaaniga ahaa baa leeyahay gala meel walba adkeeya dhulku uu ka neefsanay riiggaasu inaan meel neefsata la helin waayo wuu qarxi haddii neefta laga helo ceelka dhan baa qarxi ceelka oo dhan baa qarxi adduunka oo dhan baa qarxi hadalkayga ma fahamta geesi ma gaagaxo cabdimadarow filosoofar cabdimadarow daawadayaal dhegaystayaal taariikhda iyo warbixinta iyo waayo aragnimada iyo xigmadda filosoofar cabdimadar ku duugan idinkuma soo gudbin karo bil gudaheed waa yahay alla ilaah barnaamijkeenna waxaa la yidhaha hana qarin hana qayxin hagaag cabdimadarow 100 sano waxaan maqlay bil baa kaaga dhiman iyo wax la mida ka soo gudubba hagaag ummadda Soomaaliyeed oo dhan baa maanta ku daawanaysa hadda kaaga runtahay waxaan kaa rabaa dadka Soomaaliyeed dagaal sokeeyaa la degay iyagoo walaalahoo wada dhashay oo qoys tarmay ah oo dhari wax ku karsan kara ayaa haddana waxaa kala geeyay niman leeyahay waa siyaasiyiin ummadda Soomaaliyeed ku maqlaysa maadaama aad tahay filosoofar 100 sano jira bal hal ereyna bal maanta hal erey oo waana ah goor la dhiman alla ogay maadaama 100 sano jirto filosoofar way aragoo ma garanaysaa geologist ana tahay bal hal erey bal leexata waxaan ku su'aalahayaa waa su'aal aad iyo aad u qiimo badan waa su'aalaha aan doonayay ee aan jeclaa waligayba inaan helo waxaa weeye dalkan anigu markaan Soomaali ahaa ee waqtigaa joogay dadku wada walaaliye ehel buu ahaa waan gartay dadku walaaluu ahaa isu seedibaa la ahaa isu sodog baa la ahaa ummad walaalay ahaayoo koobka shaaha wada cabta aniga taariikhdii aan soo joogay hore haddaad wax iga su'aalayso tan hadda maanta joogta ma sheegahay tii hore dad wada walaalay ahaayeen anoon xabar cidna ka aqoonin meel ku soconin baan alay xalanka markii la saarahayay midoo iigu horeysay xamar dad baa i dhaweeyay oo i kaxeeyay oo guri i geeyay oo raashin i siiyay oo wax walba ii qabtay Soomaali weyn aabahayna ma dhalin hooyadana ma dhalin walaalo sibbo dadku waa wada jibaysaya rag iyo dumar ba ka artaa walaal xageed ku nooshaa xageen ku geyna mana raaci baa la oran jiray ummadda Soomaaliyeed sidaasay ahayd nimanka madaxda ah ugaasiyada u hana baala suldaanku u hana iyaga is xurmayn jiray oo is ixtiraami jiray ixtiraam qofkuna dadkuna hadduu ixtiraam waayo man dhaqmo waxaa weeye marka waxan dadkii Soomaaliyeed igu soo noqo oo filosoofar cabdimadarow maxaa waanood hal erey laba oran lahayd ii soo koob waqti baa igu socda waxaan kuu soo koobahayaa waxaa weeye dadkii dad walaala awi dadkuna hadduu wada dhashay waxaa loo baahan yahay horta nin walba aakhiradii inuu eegtaa loo baahan yahay looma baahna anigaa idhi iyo anaa isgariirixinaya dadka walaaltinimaa loo baahan yahay waddanka nabadgelyaa looga baahan yahay ninkii nabadgelye iyo walaaltinimo iyo wanaag doonahaya ha ka daayo dadka dhibaatada ha isugu timaado ha la daayo oo walaalnimo ha la isugu yimaado ha la heshiiyo ilaahay afka kuma gooyo geesi ma gaago hal la heshiyo nabad ha la qaato barnaamijkeenu gabagaba ku leeyahay filosoofar cabdimadarow sida dawladda farmaajo ay wax u wado nin 100 sano jira too waayaarage sida maxay kula tahay anigu uma bogin alla ilaahay halka igu qabo uma bogin alla ilaahay halka igu qabo waxaan ugu bogin baan kuu sheegay maanta Soomaaliya oo dhanka Itoobiya jira iyo ka NFD jooga iyo ka hadda halkan jooga Soomaaliyaba jooga iyo ka Hargeysa jooga ka Boosaaso jooga waa wada Soomaali isaga xukuma farmaajo hadduu toosan yahay isaga xukumaya farmaajo xukuma
waayo isagaa Soomaali oo madaxweyne u ah waan gartay meel kasta oo la joogan hadda ku sheegay kuwa isticmaal ku jira kuwan ku jirinba farmaajo xukumi lahaa farmaajo xukumi lahaa woona xukuma hadduu toosan yahay wax walba wuu xukumayaa farmaajo waxa looga baahan yahay dadka inuu simo meeshii nabadgelyo u sii dajiyo waa meeshii nabadgelyo ugu yeero isaga laftiisu darajo iyo sharaf iyo qiimo heli aakhiriya adduunba wuu liibaani dadka qaar baa waxay leeyihiin filosoofar Cabdi Madarow farmaajo intuu xukunka yimid sida uu Jubbaland ula dhaqmayo waxa ku jirta maamada Soomaaliga la yiraahdo fiqitolkii kama janna tago arintaadu ma ku muuqataa maya ka gudub waaye ka gudub filosoofar Cabdi Madarow Ahmed Madoobe waa Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Madoobe waa madaxweynaha Jubbaland waxa la war dhafoor bu ku yaalay adeegyada uu soo qabtay Jubbaland baa laga daalacan karaa dadka taageersan ma ku jirtaa barnaamijkeeni hana qeexin oo maanta ku wareysanayay filosoofar Cabdi Madar oo 100 sano jira hadday kaaga runtahay intaasan maanta daawadayaal dhageystayaal ku soo gabagabeynaya barnaamijkan lamid ah inta aynu ku kulmi doona idamka Ilaahay dhamaantii waxaan idinkaga tagayaa wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh